AI ama Artificial Intelligence aqliyadda gacanka samayska ah. waa muuqaalo taxane ah oo aan kaga sheekayn doono aqliyadda gacanka samayska ah oo dunida u rugtay dhan kale, bedeshay goobihii waxbarashada, bedeshay goobihii shaqada, xataa maxkamadaha. waxaa garsoorayaal ka noqon doona AI, Artificial Intelligence, aqliyadda gacanka samayska ah. Google ayaa wuxuu ku bariyay waag. nagu soo biir haddii aad xiisaynayso ciwaanada kale ah book review, tech newska iyo sidoo kale educational experience-ga waxyaabo la xiriira. marka lagu soo dhawaada maanta iyo muuqaalkeena cusub. dunidan oo ay ku loolamayaan bilyaneerada, dowladaha iyo bini'aadamka intiisa kaleba, waxaa lagu kala hormaray oo lagu tartamayaa xilliga kan ama qarnigan 21 lagu jiro waa AI, Artificial Intelligence, aqliyadda gacanka samayska ah. anagoo la yaabanayn oo ama kaag ay nagu ahayd wacdaraha la yaab kale ay dhigtay shirkadda OpenAI ee uu investmentiga ku sameeyey ninka iska leh shirkadda Microsoft. waa bilyaneerka Bill Gates. waxay soo saartay ChatGPT oo dunida u rogay dhan kale, ka yaabiyey dowlado badan, ka yaabiyey goobihii waxbarashada, sidoo kalena wax badan ka bedelay habkii wax qoraalka, ka qaaday dhalinyaro badan fikirka qoraalka iyo curinta erayada, ka shaqaynta imtixaanaadka. aadba arkayso mararka qaar in buugaagta jaamacadaha lagu qalin jebinayay la leeyahay ChatGPT iyo qor oo ciwaankiisu sidaas iyo sidaas yahay dhanna uu ku diyaarinaya. taas baan la yaabaneen, anagoo la yaaban. Google ayaa wuxuu ku bariyay waaga, fadhigii ka kacday, waxbay raadisay oo AI soo saartay oo like ChatGPT camal ah, laakiin performance-gaas oo kale aan lahayn. ugu dambeyn waxay soo saartay Gemini oo dunidii mar kale qarax weyn oo Artificial Intelligence-ga ka sameeyey. muuqaalkeena maanta kagama hadlayno Gemini iyo Bard iyo sidoo kale AI kale. weli waxaan dul taaganahay oo ku jirnaa OpenAI iyo waxyaabo ay soo korisay. muuqaalada xiga oo taxana haddii Allah idmo ayaan kaga hadli doonaa Gemini iyo waxa uu kaga duwan yahay ChatGPT. OpenAI ayaa ku dhawaaqday adeeg cusub oo markaasi ay kula tartamayso Google. shir ay sameeyeen madaxda shirkadda OpenAI bishii November ee la soo dhaafay ayay ku iclaamiyeen adeeg cusub oo markaasi ay u talagaleen dadka adeegsada ChatGPT in ay lacag ka sameeyaan. waa kaliya dadka iska diiwaangeliyay qaybta ChatGPT Plus-ka ee ma ahan dadka isticmaala ChatGPT-ga free-ga ah. ChatGPT Plus haddii aad ka diiwaangashan tahay waxaad maanta laga bilaabo lacag ka samayn kartaa OpenAI. halkaana waxaa laga dareemayaa tartan ay kula jirto Google oo ay kaga faa'iidaysanayso dadka customers ku ah in markaasi ay ka hesho uun fikrado ay kula tartanto Google oo soo saartay Gemini. waa qayb source-kooda oo aad markaasi ku soo kordhi kartid fikradaada iyo wixii markaas aad leedahay way ka dhiman tahay. taasina aniga ahaan waxaan aaminsanahay iyo sidoo kale dad badan oo markaasi khubaro oo ka falanqoonaya barnaamijka oo intii aan soo baaray muuqaalkan aan soo baaray ay leeyihiin this is fantastic. waa arrin markaasi cajiib ah oo ku dhiirigelinaysa dadkii adeegsanaya ChatGPT inay adeegsadaan, xataa dadka kuwa free-ga adeegsada sida anigoo kale inay gataan qaybta ChatGPT Plus-ka si ay uga sameeyaan lacagtaas. taasina waxay interest ku abuuraysaa customers badan, waxay sameynayaan engagement badan oo dad badan ay soo jiidanayaan. AI ama Artificial Intelligence ayaa dunidii qasayda. laga yaabee in maxkamadahaba loo dhiibo AI oo la yiraahdo garsoore ka noqda. bal sidee arrintaasi macquul ku tahay? muuqaalada soo socda ayaan ku fiiri doonaa haddii Allah idmo. waxaan sameynaa book review, nagu akhrinayna buugaagta muhiim u ah dhalinyarada, kobaca nolosha, dhaqaalaha, kadibna wixii anaga aan ka faa'iiday ani ahaan aan idin la soo wadaagay. sidoo kale newskan teknolojiyadda ayaan kaga sheekeeyaa channelkan. nagu soo biir. muuqaalkan iyo muuqaalo ka xiiso badanba waxaan rajaynayaa inaan ku kalanno. waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo
أمان الله.